بسم الله الرحمن الرحيم وكل قلتي قبل waxaan akhriyi doonaa haddii la helaado warmurtiyeedkii ka soo baxay shirweynaha waad ogtihiinoo dee panel discussionskiiba hadda uu dhammaaday qodobadan markaa imika warmurtiyeedka ku qorana waa intii nuxurkii wixii laga ururiyey panel discussionskaasi reportka shirka isagoo kulley faahfaahsan ayay technical committee xagga dambe inagala wadaagi doontaa insha allahu tacaala waaye shirka madasha dhaqaalaha ee qaran 2022 taariikhda 12 bisha ilaa 14 bisha sagaalaad 2022 warmurtiyeedka shirka dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay qabanqaabisay shirka madasha dhaqaalaha ee heer qaran 2022 oo ka qabsoomay magaalada Hargeysa madashani waxay socotay muddo 3 maalmood ah oo ku beegan 12 ilaa 14 bisha sagaalaad 2022 waxayna kulmisay in ka badan 300 oo ka soo qaybgalayaal ah oo isugu jira dawladda ganacsatada hay'adaha caalamiga hay'adaha maxalliga bahda waxbarashada khubaro iyo dhaqaalayahanno ujeedada madasha dhaqaalaha ee heer qaran 2022 waxa ay ahayd in la kulmiyo khubaro ka kala socota dhammaan qaybaha bulshada oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta xukuumadda si ay uga doodaan hindisayaasha saameynta ku leh dhaqaalaha dalka iyo tallaabooyinka lagu xallin karo dhibaatooyinka dhaqaale ee dalka madasha dhaqaalaha ee heer qaran 2022 waxay soo saartay warmurtiyeedkan madashu waxay u mahadnaqaysaa dhammaan daneeyayaasha iyo khubaradii sida mugale uga qayb qaadatay muddadii ay socotay madashu waxay ku baaqaysaa qodobadan hoos ku xusan in wax soo saarka beeraha la kordhiyo iyada oo muhiimadda iyo mudnaanta ugu weyn la siinayo sidii loo heli lahaa biyo iyo shinni tayo leh iyo daawooyinka cayayaanka beeraha lagula dagaalamo ee deegaanka saaxiibka la ah in la abuuro xarunta cilmi baarista qaranka oo daraasado mug leh lagu sameeyo wadaagayaasha dhaqaalaha in laga tashado ama laga tabaabushaysto doorsoonka cimilada iyo abaaraha soo noqnoqonaya lana sameeyo seerayaal iyo biyo xidheenno qodobka afraad in la horumariyo xirfadaha iyo aqoonta dhalinyarta lana xoojiyo waxbarashada farsamada gacanta iyo tiknoolajiyadda in la dhammaystiro siyaasadaha iyo xeerarka la xiriira dhaqaalaha caymiska iyo ganacsiga lagu horumarinayo kobcinta wacyiga bulshada ee caymiska la xiriira iyada oo la garwaaqsaday muhiimadda ganacsatada yaryar ku leeyihiin dhaqaalaha dalka waa in ahmiyad gaara la siiyaa xaaladooda dhaqaale marka la gelayo heshiisyada caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee saameynta ku yeelan kara in la helo tamar wadanka ku filan la awoodi karo lana isku halayn karo in si wada jir ah la iskaga kaashado sidii khayraadka macdanta kalluunka xoolaha xabkaha iyo faleenkaba dalka loo sahmin lahaa faleenkaba ee dalka loo sahmin lahaa isla markaana suuq loogu raadin lahaa madashu waxa ay garwaaqsatay muhiimadda ay leedahay goobta Soomaaliland ay ku taalo sidaa darteed waxa ay ku baaqaysaa in la xoojiyo dhaqaale ahaan adeeg bixinta iyo ganacsiga waa waxa loo yaqaan service iyo trade madashu waxa ay ku baaqaysaa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka isgaarsiinta iyo dekedaha dalka madashu waxa ay ku baaqaysaa in la hirgeliyo heshiiska iskaashi ee beesha caalamka iyo dowladda Somaliland Partnership Agreement in dhammaan mashaariicda horumarinta ee dowladda iyo daneeyayaasha la shaqeeyaba ay ku salaysnaadaan qorshaha horumarinta qaranka in la sameeyo cilmi baaris dhammaystiran lagu sameeyo goobaha iyo fursadaha maalgashi ee dalka ka jira isla markaana
gobollada oo dhan laga hirgeliyo ama laga abuuro aagga warshadaha in la mideeyo nidaamka diiwaangelinta maalgashatada isla markaana dib u eegis lagu sameeyo tacriifada liisamada in la ballaadhiyo helitaanka adeegyada maaliyadeed ee bulshada iyada oo loo marayo dib u habaynta xeerarka adeegsiga tiknoolajiyadda iyo kobcinta wacyiga iyo aqoonta bulshada ee adeegyada maaliyadeed madashu waxay hoosta ka xariiqday in la abuuro nidaam iskaashi oo ay ka wada shaqeeyaan Banka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland ururka baranka gaarka loo leeyahay ee Somaliland daneeyayaasha kale ee iyo bahda maaliyadda si loo abuuro helitaanka damaanadaha deymaha la siiyo ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexe iyada oo mudnaanta gaarkana la siinayo dhalinyarada iyo dumarka ee la yimaada hal abuur ganacsi in la kobciyo xirfadda tiknoolajiyadda taasoo abuuraysa fursado shaqo si kor loogu qaado dhaqaalaha dalka taasoo fududeyn karta maalgashi dhinaca tiknoolajiga ah ugu dambeyn madashu waxay soo jeedinaysaa in la joogteeyo madasha dhaqaale ee qaran loona saaro guddi isku dhafan oo ka howlgasha fulinta soo jeedimaha shirkan uu soo saaray intaas ku dhayo